وشابر علي جامع waxaan ka tirsanahay xafiiska baarista cashuuraha. Cabdi Axmed ahna madax xafiiska deymaha. Magacaygu waa Cabdi Qaalib waxaan madax xafiiska cashuurta istaamkaas ama moorka. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed ahna madax xafiiska diiwaangelinta cashuur bixiyaasha. Magacaygu waa Bashiir Cabdi Maxamuud qaabilsana cashuurta shaqaalaha. Magacaygu waa Hoodan Maxamed Daahir xafiiska caawinta iyo xogsiinta cashuur bixiyaha. aniga magacaygu yahay Maxamed Ismaan Aadan agasma waaxda cashuuraha bariga cashuur bixiyo waxa halkan aan kuula wadaagaynaa shaqooyinka ay qabtaan waaxda cashuuraha barigu madax qaybiyada waaxda kuwaas oo xafiisyada ay kala yihiin xafiiska diiwaangelinta iyo xogta cashuur bixiyaha xafiiska tigidhada xafiiska cashuur la'aanta iyo deymaha xafiiska payrollka xafiisyadaas oo u adeega cashuur bixiyaasha waxay ka dhigan doontaan oo halkan si fiican uga socon doontaan xafiis kastaba qorshihiisa iyo shaqooyinka uu qabto iyo cashuur bixiyaasha shaqooyinka ay u hayaan. Magacaygu waa Hoodan Cabdiraxmaan Axmed ahna madaxa xafiiska diiwaangelinta cashuur bixiyaasha. Shaqada xafiisku waxa weeyaan diiwaangelinta cashuur bixiyaasha. Diiwaangelintu waa mas'uuliyad sharci oo ay saaran tahay muwaadinka inuu iska diiwaangeliyo waaxda cashuuraha bariga si uu u helo nambarka aqoonsiga ganacsiga. Tinku waa tax identification number waa sumada u gaarka cashuur bixiyaha ee xisaab celintiisa. tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay dalka oo dhan waxa weeyaan 740 kun oo cashuur bixiye. Sanadkan 2025 targetkaygu waxa weeyaan 5 ilaa 55 kun oo cashuur bixiye inaan gaarsiino dalka oo dhan. Marka cashuur bixiyuhu marka ugu horeysa uu yimaado waa inuu sitaa liisankiisa ganacsiga iyo xeer hoosaadka shirkadda kaarkiisa dhalashada ama baasaboorkii. Cashuur bixiyaasha waxa loo qaybiyaa laba qaybood shakhsi iyo shuraako. haddii shuraako noqoto waxa inta ay noo soo raaci doona in warqad la helo warqadii wada lahaanshiyaha ee nootayada ka dawlad ahaan faa'iidada ugu jirta waxa weeyaan in la helo xogta cashuur bixiyaha tirada guud ee cashuur bixiyaha dalka maxaa cashuur bixiyaha aan haysanaa halka ay ku kala yaalaan shaqooyinka ay qabtaan iyo shaqaalaha ay leeyihiin inaan ogaano isaga cashuur bixiyaha waxa faa'iido ugu jirta inuu helo markasta xisaab celintiisii cashuureed inuu helo shahaadadii tinka iyo inuu helo cashuur la'aantii. Wasaaradda Maaliyaddu waxay faraysaa inuu isku soo diiwaangeliyo ganacsaduhu 12 cisho gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta uu ganacsigiisu bilaabo. Cashuur bixiyo waxaan kula wadaagi doonaa habka ku diiwaangelin karto ama aad ku heli karto samaynta tinka. Waxaad iska diiwaangelin kartaa xarunta cashuuraha bariga degmooyinka gobolada iyo waliba laamaha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Hoodan Maxamed Daahir ku soo dhawaada xafiiska caawinta iyo xogsiinta cashuur bixiyaha. Haddaba fadlan muwaadin haddii aad qabtid wax cabasho ah amba wax caawina waxaad naga soo qaraaci kartaa lambarka gaaban 9494 kaasi aad ka soo dooranaysid lambar 2. Haddaba fadlan muwaadin waxaan kuu soo kordhinaa habkii portalka oo kuu sahlaya inaad ku soo bixisid cashuurtaada adigoo fadhiya goobtaada ganacsi ama xafiiskaaga. haddaba fadlan muwaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad tagtid goobta cashuurta ku bixisid si lagugu tababaro habka cusub ee portalka. Anigoo ah Cabdi Axmed ahna madax xafiiska deymaha waaxda cashuuraha bariga cashuur bixiye waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa inaan idin fududeynay qaadashada warqadda cashuur la'aanta habka lagu helayo adigoo isticmaalaya habka online-ka ama hanaanka iswadee waaxda cashuuraha bariga ku shaqeeyaan. si aad haddaba u hesho cashuur bixiye warqadda cashuur la'aanta horta marka hore dhammaan waa in cashuurihii kulaha iska soo bixisaan idinkoo adeegsanaya adeegyada ay ka mid ka yihiin adeeg online portalka oo ku fududeynaya inaad lacagta lagaaga qabto adigoo goobtaada shaqo jooga gurigaaga jooga. sidoo kale waxaad ku bixin kartaa cashuurta adigoo booqanaya ama tagaya goobtaada cashuur bixineed hadday gobol tahay hadday degmo tahay hadday laan tahay kolba halka aad joogto faylkaaga cashuureed ka furan yahay. haddaba dhammaan waxaa la farayaa cashuur bixiyaasha ay weli cashiirtii ku baaqatay inay u soo bixiyaan cashuurta sida ugu dhaqsaha badan leh inta aan laga qaadin tallaabooyinka sharcigu waajibiyay ee xeerka dakhliga jideeyay iyadoo la siinayo fursad ah muddo 3 cisho gudahood inay ku soo bixiyaan dhammaan cashuuraha baaqday. Magacaygu waa Jaabir Cali Jaamac waxaan ka tirsanahay xafiiska baarista cashuuraha. Marka ugu horeysa waxaynu isweydiinaynaa waajibaadka xafiiska waa maxay tax audit. hanti dhowrka cashuuruhu waa baadhis lagu sameeyo ritaanada xisaab xidhka iyo diiwaanada ama recordiska cashuur bixiyayaasha si loo hubiyo in si sax ah loo soo diyaariyay cid kasta oo u hoggaansami weyda
xafiiska hantidhowrka cashuuraha waxay ku mutaysanaysaa ganaax sidoo kale ujeedooyinka hantidhowrku waxa weeye xafiiska ujeedooyinkiisu si kor loogu qaado hoggaansanaanta xeerka dakhliga in laga soo dhex qabto cid kasta oo aan xeerka u hoggaansamin in cashuur bixiyayaashu si fiican u fahmaan xeerka dakhliga sidoo kale noocyada baadhista ee xafiisku sameeyo waxaa ka mid ah mid dokumentiyada cashuur bixiyayaasha cashuur bixiyuhu uu soo gudbiyo dabadeedna la audit gareeyo ama la baadho sidoo kale kuwii hore u sii yaalay xafiiska laftiisana waa la audit gareeyaa oo waa la baadhaa ama dokumentiyadii systemka noogu jira annagu aanu haynay sidoo kale noocyada lagu baadho waxaa ka mid ah in xafiiska lagu booqdo cashuur bixiyaha dabadeedna baadhis lagu sameeyo intaasoo dhan xafiisku waxa uu u fulinayaa isagoo u cugsanaya xeerka dakhliga qodobadiisa 38 39 iyo 40 oo awood u siinaya xafiisku inuu baadhis ku sameyn karo recordiska buugaagta ama kombiyuutarada waxaan si faahfaahsan jeclaan lahaa in halkan bulshada ugula wadaago maxay tahay cashuurta shaqaaluhu cashuurta shaqaaluhu waa cashuur ku waajibtay qof kasta oo dalka shaqo ka haya dakhliina ka soo gala isla mar ahaanta loo shaqeeyaha waxaa ku waajiba inuu shaqaalihiisa ka soo reebo ama ka jaro dakhliga cashuurta shaqaalaha ay ku waajibtay isagoo wakiiloogaha dowladda gaarsiinayna xafiisyada dakhliga sidoo kalena soo raacinaya documentationka ama lifaaqada looga baahan yahay cashuurta ku waajibay cashuurta shaqaalaha waxaa loo qaadaa qaab heeraysan isla mar ahaantaana waxay ka bilaabantaa 416 kun oo Soomaaliland shilina oo dhiganta $40 dakhliga intaa ku siman cashuur kuma waajibayso balse wixii intaa ka badan ee shaqaale dakhli ka soo galo shaqo dalka ka hayo waxaa ku waajibaysa cashuur tacriifadeedu yahay 6% ama 6% ka waran haddii aanu ka reebin loo shaqeeyuhu cashuurta shaqaalihiisa loo shaqeeyo kasta waxaa ku waajiba inuu ka reebo cashuurta dakhliga shaqaalaha ka soo gala shaqada uu joogo ama cashuurta payroll taxka institution kasta ama goob kasta oo ka shaqeeyo ku sugan yahay isla mar ahaanta haddii uu ka reebi waayo mas'uuliyaddu isaga ayaa fuulasaa lacagtaana isaga ayaa dowladda uga wakiila oo isaga ayaa jeebkiisa ka bixinaya ka waran haddii aanu soo bixin muddada loogu talagalay cashuur bixiyuhu cashuurta shaqaalaha yacni 1 bisha ilaa 15 bisha dhamaatay bisha ku xigta ayaa laga doonayaa inuu cashuurta dakhliga shaqaalaha soo xareeyo oo dowladda wakiil uga yahay shaqaalaha mas'uuliyadooda hayo isla maraanta 15 bisha wixii ka dambeeya waxa ka ratibmaya oo bilaabmaya ganaax dibdhacaasi oo sababay ama uu keensaday ganaaxaasi wuxuu noqonayaa 2% ama 2%. magacaygu Wayd Cabdilaahi Qaalib waxaan madaxa xafiiska cashuurta Stamp Tax ama Moorka waxaan ka hadlay markaa warbixin yar ku saabsan xafiiska tikidhada iyo qaabka uu shaqeeyo iyo anwaacda tikidhada ee xafiiskan uu ku shaqeeyo xafiiska waxaa dib loo furay sanadkii 2022 iyo dib loo hawlgeliyay bishii 11aad goobaha uu gaadhay waxa kamid ah 27 wasaaradood oo hay'adaha dawladda kamid ah hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda oo 22 dawladaha hoose ee dalka iibiyaasha madaxa bannaan sida jaamacadaha iyo nootayooyinka waxaan yara qeexi doonaa markaas hadaba cashuurta tikidhadu waxay tahay iyo noocyada tikidhadu iyo fariintaan u dirayna markaa qolada aan wada shaqaynta leenahay cashuurta tikidhadu waa cashuur ku waajibaysa qoraalada iyo xeerarka cashuurta moorka ama tikidhada ee laga dhaqmo ama ka jira dalka Soomaaliland wargelinta u dirayo markaa mas'uuliyiinta iyo hay'adaha dawladda ee gacanta ku haya tikidhadaasi iibiyaasha madaxa bannaan daddargelinta dhamaystirka cashuurta adeegsiga cashuurta tikidhadu waa waajib saaran qof kasta oo gacanta ku haya iyadoo la cuskanayo xeerka dakhliga ee tirsigiisu yahay xeer number 27/2016 jaantuska 7 ee xeerka cashuurta tikidhada ama moorka tirsigiisa 85/1996 iyo wareegtada wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee kuna taariikhaysan 2 bishii 6/2022 noocyada tikidhada waa 7 nooc oo xafiis ku shaqeeyo kaas ugu horeeya waa noocka 6 kuna shilin weeya waxa qaata maxkamadda waxa loo isticmaalaa markaas khilaafyada iyo qoysaska iyo dhaawacyada aan wali lagu heshiinin ee maxkamaddu sameeyaan noorka noogu xiga noorkan 10 kuna oo isagu dokumentiyada ku dhigay waxa kamid ah
kala wareejinta hantida guurtada iyo maguurtada ah iyo amarka alaab bixinta heshiisyada codsiyada ama araajida applicationska dacwadaha iyo racfaanada shaatiga dawladda hoose dhexdhexaadinta iyo kala xaqsiinta iyo kiisaska madaniga ah qaansheegyada oo biilashiya iyo maslaxaynta iyo ganaxyada dambiyada fudud noorka noogu xigaa noorkaasi isagu waa 20,000 wuxuu ku dhagaa isagu markaasi shahaadada dugsiyada ruqsadda liisamada gaadiidka ama license aqoonsiga national ID card-ka dhalashada meherka iyo fururinka iyo wixii lamid ah warqadda cashuurta cashuur la'aanta ama tax clearance iyo warqadda cashuur dhaafka mulkiyadaha beeraha dhulka iyo beeraha waa noorkaasi noorka isaguna noorka labaad noorka saddexaad xafiisku ugu shaqeeyo noorka kale ee noogu soo xiga waa noorka isaguna 30,000 oo kaasa wuxuu ku dhagaa cusboonaysiinta baasaboorka waxaana gacanta ku haya immigration ama laanta socdaalka noorka noogu soo xiga waxa weeye noorka 40,000 oo kaasa oo hadda fariintiisa diri doona isaguna oo takhasuska jaamacadaha oo hadda fariintiisa diri doona isagana noorka noogu soo xiga waa noorka isaguna 50,000 oo ku dhagaa isagoo arjiga madaxweynaha labada gole baarlamaanka iyo wakiilada baasaboorka cusub iyo dhaxalka noorka 50,000 noorka kale noogu soo xiga waxa weeye waa noorka warqadda dambi la'aanta oo ay qaataan CID-da iyo xeer ilaalintu inta hadan kaga imaado marka tigidhada iyo anwaacdiisa waxaan u gelayaa markaasi fariintaan u dirayo markaasi jaamacadaha iyo notayooyinka fariintaan diray waxa weeyaan jaamacadu waxay isticmaali doonaan hadii alla yiraahdo anagoo tababar hore qabanay oo og yihiin wax baan ku sheeganayn dhammaan wixii tasdiilaad looga baahnaa wasaaradda maaliyadda ay diyaar yihiin toddobaadkan gudihiisa in la hawl gelin doono oo labada ardayda labada qaybood kala ah ardayda soo gelaysa sanadka jaamacadda freshka iyo kuwa baxaya ay kala qaadan doonaan labada tigidhka waxa qaadan doona 10,000 waxa qaadan doona qolada soo gelaysa jaamacadda freshka oo lagu dhajin doona marka admission formka ama formka codsiga jaamacadda oo 10,000 wixii la qabashay iyo amuurihiidan waxa ay jaamacadaha gacanta ku haya waan u gaarsiin doonaa stiikeradii iyo mobiladii labadu waa naga diyaar noorka ku xiga waxa weeyaan markaan fariintan u diray waxa waan ardayda qaybta labaad ee baxaysa jaamacadda ka baxaysa ama kuwa hore u baxay laakiin documentkoodii wali u yaala jaamacadda oo qaadan doona iyaga noorka 40,000 oo lagu dhajin doona formka clearance formka ardaygu ku jaamacadda ka baxayo markaas guud ahaan shaqadii xafiisku intaas ay ku egtay وعشورتي دورة وعشورتي ديبو